gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa gudoomiyaha degmada iyo golaha deegaanka shacabka magaalada gaalkacyo dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa soo dhowayntan diiran ee guryo noqoshadii aan ku soo guryo noqonnay puntland annagoo safar shaqo ugu maqnayn dawladda galmudug magaalada dhuusamareeb waxaan aad ugu faraxsannahay taageeradiinna waxaan mar walba iyo meel kastaan u joogno ka shaqayn doonnaa danaha soomaaliyeed iyo kuwa puntland waxaa muhiim noo ah annagoo ilaalinayna danta soomaaliyeed haddana maslaxadda puntland marnaba inaan gorgortan aanan ka gelin haddii ilaaha idmo mar walba waxaan ku taagnaan doonnaa waxa maslaxadda guud iyo midda gaarkaaba ay ku jirto dalka soomaaliyeed marxalad kala guura ayuu marayaa marxalad ay u baahan tahay si taxaddar leh in loo wajahay maraysaa reer puntland haddaan nahay waxaa la rabaa inaan midnimadeenna adkaynno soomaali xalkeeda wax ka raadinno gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa madaxweynaha iyo shacabka reer galmudug oo runtii soo dhowayn weliba gaar ah na siiyey haddaan reer puntland nahay waxa ay runtii safarka dhuusamareeb marka laga tago shirkii aan u joognay wuxuu noo lahaa ahmiyad gaar ah wuxuu daba socday shirarkii isdabajoogga ahaa ee aan madaxda galmudug la yeelanaynay si aan u horumarinno nabadda wadajirka iyo derisnimada maantana waxay safarkeenna dhuusamareeb aan uga nimid ilaa gaalkacyo waxay astaan u tahay safar nabadeed buu ahaa safar aan runtii ku dhiirigelinaynay nabadda iyo isdhex socodku ayuu ahaa waad og tihiinoo shacabku marmar waa isdhex socon jiray laakiin madaxdu sidaan uma socon jirin waxaan uga mahadcelinayaa shacabka reer galmudug sida diiradee noo soo dhoweeyeen intii aan soo soconnay oo dhan ilaa iyo intii aan joognay ahmiyad gaara ayay siiyeen runtii puntland waxaan inii caddaynayaa reer galmudug inay ka go'an tahay nabadda iyo wada noolaanshaha idinkana waxaa la rabaa kaalintiinna inaad ka qaadataan haddii galmudug iyo puntland ay gacmaha isqabsadaan waxaan ku rajo weynahay soomaaliya nabaddeeda inay muddo yar ku soo noqonayso dawladnimadeennana ay hana qaadi doonto waxaan runtii jeclahay inaan halka iniga mahadceliyo dhammaantiin waa inila joogi doonnaa haddii ilaahaydno gobolka xafladda 1 agosta halkaan joogi doonnaa haddii ilaahaydno hadalladeenna dib baan u dhigan doonnaa iyo khudbadaha ku aadan wakhtiga iyo munaasabadaha runtii maanta meel fiican baynu maraynaa waxaa loo baahan yahay intaasoo naga sii dhowaanno aad baad u mahadsantihiin wasalaam